dadyowga Soomaaliyeed waa kuwa ka mid ah dadka ugu fiican dunida. waxaan hubaa qof walba inuu leeyahay saaxiib Soomaali ah. laakiin maanta waxaan si qoto dheer u eegi doonaa noloshooda iyo taariikhdooda. inkastoo ay Soomaalidu af u gaar ah ku hadlaan, haddana qaar badan ayaa luqadda Carabiga si fiican u yaqaana. Soomaalidu waxay ku nool yihiin qaybtan calaamadeysan ee ah bariga Afrika ee geeska Afrika. hamiga ugu weyn ee Soomaalidu ayaa ah in ay hal wadan ku wada noolaadaan, balse gumeystihii tegay iyo colaad qabiil ayaa kala qaybisay. In 1960 by merging two former colonies, Italian Somalia and British Somaliland. waxaan kaaga warramayaa waqooyiga Soomaaliya, meesha loo yaqaan Somaliland, oo micnaheedu yahay dhulka Soomaaliyeed. si aan u ogaano xogta qaybtan, aan isla soconnaa ilaa dhamaadka. No questions asked. hal wadan oo aqoonsan ma jiro. So Somaliland's an unrecognized country. We've been a country for 31 years. Similar to Taiwan, how it's an unrecognized region. Faransiisku wuxuu qaatay Djibouti, Ingiriisku wuxuu qaatay Somaliland, Talyaaniguna wuxuu qaatay Soomaaliya. waqooyi iyo koonfur waxay xornimadoodu qaateen 1960 kadib waxay ku midoobeen inay noqdaan Jamhuuriyadda Soomaaliya. Djibouti iyadana si xigta waxay xornimadeedu qaatay 1977, laakiin kama aysan mid noqon Jamhuuriyadda Soomaaliya. 1969 waxa wadanka ka dhacay afgembi military. Maxamed Siyaad Barre ayaa wadanka qabsaday, wuxuuna Soomaaliya ku maamulay nidaam communist ah. wuxuu ciqaabay cid kasta oo ka hor timaada, wuxuuna wadanka xukumayay muddo 20 sano ah. kadib fashilkii xukunka Siyaad Barre, waxa awood qaybsiga wadanka isku qabsaday qabiilo, waxaana ka dhex qarxay dagaal sukay oo Soomaaliya burburiyay. kadib burburkaas, waqooyi Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay ka go'een koonfurta Soomaaliya oo ay dhisteen dawlad loo bixiyay Somaliland. tan iyo markaas, wadankan aan la aqoonsanin ayaa ku nool nabad iyo xasilooni. waxay leeyihiin dawlad iyo baarlamaan u gaar ah. dhanka kale, koonfurta Soomaaliya weli waxay ku jirtaa dagaal iyo xaalad siyaasadeed oo aan degnayn. bal aan isla eegno xasiloonida iyo nimcada ka jirta waqooyi Soomaaliya. waxaan ku bilaabaynaa suuqa weyn ee sarifka lacagta. dadka waxay lacagaha ku kala sarriftaan waddooyinka, waana dhaqan caalamka oo idil aad ku arkaynin. marka la rabo in xafladaha gaarka ah mise aroosyada la dhigto, dadku waxay u baahan yihiin lacag, balse inta badana ma isticmaalaan lacagtooda sababtoo ah shilinkooda aad buu u liitaa. badanaa waxay isticmaalaan lacagaha lagu bixiyo telefoonnada, waana habka ugu fudud ee wax lagu bixiyo. From your phone to his account. Wait, you didn't bet anything? No, I already typed it in. Like I texted a number to own mobile money transfer system, and it's actually one of the best in the world because anyone can use it, and you're not being charged a certain. An app called Saad. It's like that video in China. We send money electronically. Without cash? Yes, without cash. When I take my phone out, I put in a code, and then I put in the amount, and it's transferred right away. I can take money out of my phone, send it to him, and he'll give me. waa wadan amni ah oo dadka xitaa dahabka iyo lacagta ay waddooyinka ku dhaafaan xilliga salaada. Somaliland, we are very pleased to see you guys here. Waseli Das is originated from Sela.
Somaliland waxay caan ku tahay cuntooyin aad u macaan, tusaale ahaan laxooxda oo koonfurta Soomaaliya loogu yaqaano canjeero, cunto dhaqameedyo iyo basta Soomaali, iyo cuntooyin kale oo fudud sida kuwa wadooyinka lagu kariyo. Cunto kasto waxa ay ku cunaan mooska. Waxaa cajiib ah in mooska uu ka yimaado Muqdisho oo ah koonfurta Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu sarreeya qaaradda Afrika dhanka dhoofinta mooska. Somaliland sidoo kale waxay leedahay suuqyada geelka ugu weyn dunida. Geelka ugu jaban qiimo ahaan waa $200, halka kan ugu qaalisan uu gaaro ilaa $1,500 ah. Marka ay geelka kala iibsanayaan, waxay gacanta saaraan maro si aan qiimaha loo ogaan oo sirta loo xakameeyo. Marka laga soo tago nolosha caadiga ah, Somaliland waxay caan ku tahay goob lagu magacaabo Laasgeel oo goob taariikhi ah. Laasgeel waa godad qadiimi ah oo lagu rinjiyay sawirro da'dooda la rumaysan yahay in ay ka badan yihiin 5,000 oo sano. Sawirradani waxay muujinayaan nolosha xoolo dhaqatada waa hore, waana meel ka mid ah meelaha ugu taariikhda weyn Afrika. Somaliland waa dal yar oo dhaqaale aad u ballaaran sameeyay. Waxaan muddo 2 saac u soconay caasimadda labaad ee dalka, Berbera. Berbera waxay martigelisaa dekedda Berbera oo wax kasta oo dalka soo galo laga dhoofiyo. Sidoo kale, Somaliland waxay leedahay goobo aad u qurux badan oo lagu soo dalxiisi karo qof walba oo nature jecel, sida Buurta Sheekh iyo meelo kale aad u badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. Fadlan subscribe noo saar si aad u hesho xogta bariga Afrika iyo bariga dhexe.